بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وزير كحجينك أقاسمها جودة وزارة شغالها وزارة الفافين تكونفور قلبات سوماليا إذا أنك فرح سنة إني نجيك كلهم والدنا ما دام سديدي برود الحضافي هول الشغل لك شل مشغول صناعي وزارة النشقة دي إذا بدنا عيتي إني نجيك أسوار السنة ورايني أنقب صومي سديدي برود الحضافي waxyaabaha la fadowni oo sidii bilood xadareeras oo gobolna oo alle roba iyada siin kama nagaana kulankiin guud ahaanba wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed Soomaaliya oo isku xiraha dawladda iyo natiijada dadweynaha koonfur galbeed Soomaaliya wali toddobaadkii la dhaafi awood saartay waana iska xilqaantay in iyo bal dadweynaha reer koonfur galbeed Soomaaliya iyo natiijada dawladda wada hadalaan shaqo culus la gobol toddobaadkii la dhaafi guud ahaanba shaqalaha wasaaradda warfaafinta waa gelinta koonfur galbeed Soomaaliya oo uu ku horeeyay agaasimaha guud iyo natiijada agaasimo waxaadiyada iyada kama nagaan shaqadii faylahaaytay suurado badan ay tay toddobaadkii dawladda iyo dadweynaha sabaha garlaante iyo goboleen iyo naysidi iyo aan ku xaqabtireen dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya sida wala iyo tabadaan iyo natiijada wala iyo qalbiga ka hayn iyada kama nagaan guud ahaanba shaqalaha wasaaradda oo duruufo badan oo culus isku jiraan oo guud ahaanba dalka dhanba ku jiraan laakiin shaqaale fayla oo taxadar badan muujiyo shaqo badan oo dawladnimada kaalmo ay qobadaayaan ee wasaaradda warfaafinta ruugan iyada kama nagaana dawladnimada wali waxa ani duruufo madaas jira la ka sabra la ka dul qaadada waana wallahi walaa madaas la qobado kora iyagoo shakhsa lanka duraana waana lanka amaanana dawladnimada la hormariyo ee muhiim ah wasaaradda warfaafinta waa gelinta koonfur galbeed Soomaaliya wali inteeginta inay hormarida guud ahaanba warbaahinta dawladda koonfur galbeed Soomaaliya sida raadiyaha TV-ga koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo toddobaadkii la dhaafay si weyn dawladda aan ka amaantay wax qorshihii isla xisaabtanka dawladda hay dawladii dadweynaha hay wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed Soomaaliya sheenowsha iyo natiixa ku fakarowsha madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya oo qeyb ku hayay furitaankii toddobaadka dawladda iyo dadweynaha koonfur galbeed Soomaaliya wali si guud meeladan ka amaanay wasaaradda warfaafinta aragtida saliimka iyo natiijo isku xirka dawladda koonfur galbeed iyo natiijo shacabka iyo nasiyaanta gabagabadii barnaamijkana dabcan gudoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya oo uu siina barnaamijkii isla xisaabtanka dawladda iyo dadweynaha hiri wali sheegay in shaqo fayl la qabaday kalsooni badan oo dawladda iyo natiijo dadweynahana iyo abuurantii dawladda koonfur galbeed Soomaaliya iyo diyaarinta waxyaabaha hortabka la ama mudnaanta la reer koonfur galbeed Soomaaliya nooc walba iyo tiiniyo hormariyaan guud ahaanba walisan kama nagay shaqadii faylahayti toddobaadkii hore isin gobateen shaqalaha wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed Soomaaliya iyo naytay cid kasta oo galan gujeysati barnaamijka suurado badan inay u soo qabsooma waana dawladda magaciyo naytay sharaf weyn iyo kawaalada iyagoo hogaamiyay wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed Soomaaliya saasato ko walifaday guud ahaanba warbaahinta dawladda iyo hormariyaan waana lama laabaan shaqada iyo hay'adaha bulshada reer koonfur galbeed Soomaaliya hadii ay raadiyahay hadii ay TV-ga iyo hadii ay baraha bulshada oo dawladda garanta ka hayto guud ahaanba iyo horumarin badan suubiyaan waana habban dhakan khayraadka dalkan ka jira guud ahaanba kanmaada iyo naytay kan qarsoon waana hormariyaan barnaamijyada TV iyo raadiyaha koonfur galbeed Soomaaliya ku bahadoon saasato ka dabcan wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed Soomaaliya wali diyaariyahay ta kulan weyn oo ay iska wari doonto alle roba guud ahaanba fanaaniinta reer koonfur galbeed Soomaaliya dalid dibad meelbi iyo roogan gaar ahaan magaalada Baydhabo ku sugan abwaanada fanaaniinta dadka halbeegyada leh wal curiyow iyo naytay dadka fanka ka dhaxjara koonfur galbeed Soomaaliya in wasaaradda mardhow iyo iska wari doonta guud ahaanba bahda fanka iyo suugaanta koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo dabcan aaraa iyo naytay fikir badan la iska weydaarsado doona doorka fanka iyo suugaanta koonfur galbeed Soomaaliya u siina korlangaada fanaaniinta iyo naytay abwaanadana talooyin shil dhageysada satayeen iyo naytay tabareeyo iyo naytay hogaan faylanka suubi fanaaniinta koonfur galbeed Soomaaliya wasaaradda warfaafinta doorkaas qaado doonto alle roba si iyo qiiman ku nagalaan dib u heshiisiinta wacyigelinta iyo natiijada soo noolaynta fanka iyo suugaanta koonfur galbeed Soomaaliya hadii ilaahay roona toddobaadka xadareero wasaaradda iyo qaban qaabi doonto alle roba guud ahaan wali ku codsadaane fanaaniinta reer koonfur galbeed Soomaaliya haan gudaha roogaan dibadda roogaanba in iyo galan weyn miisiyaan
sidii una ummaday fanaaniinta koonfur galbeed Soomaaliya salin hala dawladda iyo naytay shacabshe fanaaniintii iyo naytay bulshada oo dhanba isla jaraan doorsho saliimka oo wacyigelinta bulshada iyo naytay horumarinta fanka iyo suugaanta koonfur galbeedna aan kulan ee muhiim ah insha Allah taala wali rajeeyana بإذن الله تعالى كلمة الدولة اللي لها يتشعب شيء يعني كلمة وزارة ورفافنته يلا لها يتشغلها ورباهنته يعني فنك يسوق أنت كونفور قلبات سوماليا مدلها سكهور يعني والفيل أو تابقة له الدولة نماذج هيلي ويو حكو